Farqiga u dhexeeya riyada iyo hadafka waa waqtiga oo xadidan. Waxaa laga yaabaa inaad taqaano waxa aad rabto iyo sababta aad u rabto. Waxaa laga yaabaa inaad qaadatay go'aan adag, sidoo kalena waxaa dhici karta inaad isku aragto inaad leedahay kartidii iyo karaankii aad ku fulin lahayd. Laakiin haddaanu hadafkaasi lahayn xilli xadidan oo aad bilaabayso iyo xilli aad dhammaynayso, way adkaanaysaa inaad hadafkaas xaqiijiso. Waayo maalinba maalin bay kuu dhiibaysaa. Sidaad u leedahay berri baan bilaabayaa, waxaad arkaysaa waqtigii oo tagay iyo adigoon hadafkaas gaarin. Waxba lama dhammaystiro haddaanu jirin xilli cayiman oo hawsha la galo iyo xilli xadidan oo la dhammeeyo. Muddo cayimintu waxay dardar gelinaysaa nafta, waxayna u diidaysaa caajiska. Sidoo kale waxay kuu fududaynaysaa inaad yeelato diirad sarreysa iyo mudnaansiin. Ha dhigan yool haddaanad samaynayn muddo cayiman oo aad doonayso inaad xaqiijiso. Tusaale waa riyo haddaad tidhaahdo waxaan doonayaa inaan 15 juz oo Qur'aan ah xifdiyo. Waxaad riyadaas xaqiijin kartaa kolka aad tidhaahdo 2021 marka la gaaro waxaan rabaa inaan 15 juz xifdiyo. Tusaale labaad waa riyo haddaad tidhaahdo waxaan doonayaa inaan ganacsi furto. Waxayse riyadaas hadaf la xaqiijin karo noqotaa marka aad tidhaahdo waxaan doonayaa inaan December furto ganacsi noocaasa. Haddaba xadido waqtigaaga.